ولا هو maxay ummadan wada dhakada diiranay meesha fadhida ilaahay ma keenay soo cudure orintaas waa kaftan dhalinyarteeni waxaad muddo baashin xuquuqdadka wada qaatay mid arkaysa muraayid isku eegayo kolba iska cadhoonayd muddo inuu $50 isku leeyahay isagu ama muraayid way daarta u sameeyay mid baa intuu xaga jeel mariyay dhinacaana bixii ku rogay mid baa feeriyo yixyar xaga kaga taalood muddo xaga dama uga carray baasha ilaahay ba bixiyo xanuun meedu ku haysa iyo garaac iyo dhimeedu ku haysa miska taa khaliha ala allah haska taala meesha taasi waa taa qodobka labaad ee sheegaya wuxuu yahay war xafladda waa la inoo qabtaa inuu iska nimaado ma ogtahay saliidaha iyo gariimada dhacay ugu badan timaha daadaadiya ninka xafladda idin qabanqaabiya sameeya oo hadana waad iska imanaysan umadiina wada waaweyn wada dhakada diiran meesha waad soo fadhiisanaysan Soomaalidu ma ogolaan wax loo sheego war cadaanku xataa xafladda lacagta lagu bixiyay intii gaaraysa wad garanaysan boqolkiiba 740 baa cadaanka dan yara miyay wax u qabto iyaga wax u siiyaan muxuu inaga wax inagu qabanayeen ujeedada jir wadadka ibni aadanka dadka muslimiinta ah waxa la dagaalamaa waa qalbigooda iyo maskaxdooda marka hore qalbigooda la dagaalamaa waa aqeedadooda oo ta diinteeni la fasahaadiya carruurteeni diinta ka wada baxayso ee qolba firqad sheegtay qolba meel ku diinta lafteedii khilaaf ku taagan yahay midna waa maskaxda oo qofku wuxuu i'tiqaadsan yahay wax iska qaban karayo ee uu diidi karayo wax yeeli karayo idinka Soomaalida markii maskax iyo qalb mid baleedi ka waayay ayaa dhakadiin loo soo dhigtay diiranayd ee meesha taal oo dhakadiin laga talnay maanta bidaar leedin qabanay ilaahay baan ku dharshay adigu xaflad baa leedin qabanay maxaa loo qabanay ma daawo maalinta bidaarta ma kullu ilaahay tamid ka soo saaray ma roob mid ku daasinay warano mid baan idin sheegay idinku aabayaashii Soomaalida marka halkaas wada fadhiisataan maxaad carruurtiinu malaynaysan iyo guriyini maxaa ku dambeeyay marka halka fadhidaan war Afrika talaal baa la keenaa dabargo ah oo carruurta lagu dabargoynayo guriyaha laga soo saaraya talaal yar baa la siinayo wasiirka caafimaadka ka saayo TV ka hadlaya ana dandamiya caadi caadi ku tahay farjir baa loogu talagalay farjir baa tahay nibada lagu soo diriyay war inaga haday cadaan haduu wax soo saaro ama cadaan uu dawad dalka keeno dhamaanteen sukuun hay waynu ku sukuun baan ku wada faraxsan waa in cadaana ayaa inoo keeno laakiin in Soomaaliya maanta dad falaashaha soo qaado lixis asxaabihiin u geeyo markaas shaahir taxliineen muuna sixriya maanta malaha shaahir nagu keen jirni waa bila hayl mid oranaya waa bila sonkor yani ninka gaalka ahaa ee cadow Allah ahaa ee inaga cadowga inoo ahaa ee ilaahay diidana wuxuu keenay sukuuna wad ku faraxsantaa wax fiican weey laakiin walaalka wuxuu ku soo warnaga Soomaalida wallahi hadii Soomaalida ninka mid $5 la siiyo oo lagu Soomaalida mar ilaahay way naga hayee wallahi gambu inaga dhigaya wallahi yani midino la hareeyay wallahi warnaga ilaahayna inoo ma xuma cadaanna inoo ma xuma ee inaga isku xun ninka cadaanka soo degay dawladda ruuxani muxuu yahay dawladda lagu keenay carruurta la siinay dad wadan kasta caalam wuxuu leeyahay qolo taxliilisay dawooyinka oo fariisto oo dawladdu halka ka timid iyo waxay wadato inagu inta mid meegan dadka xun baad digaysan wax la sheegay ma guli Cabdisraado ka soo kacay iga qabo bidaarta leeyahay dhikar baa leeyahay xagga igu soo socdaa aan kugu soo gaaray war waxaan idinka tagaya wassalaamu calaykum hay